سعدية حسن وهوية وقتgeeda badankiisa ku sugan ganacsigeeda waxayna halkan ku akhrinaysaa Quraanka Kariimka waxayna naga warantay faa'iidada Quraanka Kariimka ee bishan ay leedahay. akhrisku bisha Ramadaan faa'iido aad u tar badan iyo fadli dheeraad ayuu leeyahay sababtoo ah waa shahru Ramadaan waa bishii Quraanka la soo dejiyay oo Ilaahay aayaadkiisa uga waramay rasuulka sallallahu alayhi wasallam shahru Ramadaan ayaa Quraanka lagu soo dejiyay markii horena Quraanka waxa la soo dejiyay isagoo dafca kaliya ah ayaa samaa dunya la keenay bacdayna Jibriil ayaa soo qaadayay oo marba rasuulka sallallahu alayhi wasallam dafca u keenayay marka kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa Jibriil mid la akhriya Quraanka oo ay wada akhriyaan bisha Ramadaan sanadkiiba mar sidoo kale sanadkii rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo afsanayay Jibriil iyo rasuulku waxay Quraanka wada akhriyeen marratayn bay wada akhriyeen laba jeer ayay wada akhriyeen halkaasna ahamiyada Quraanku uu leeyahay maxaan ku bisha Ramadaan in la akhriyo ayaan ka qaadanaynaa in marba marka ku xigta ka dambaysa ama ku xigta Quraan akhriska la badiyo markale hooyo Sacdiya ayaa inoo sharaxaysa sida loo qaybi karo Quraan akhriska inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan saxaabadii iyo salafkii waxay ahaayeen kuwa Quraanka akhriya bisha Ramadaan oo khatima tobankii bariba mar kuwa khatima ayay ahaayeen maalinkiina akhriya 3 juz sidoo kale qayb ka mid waxay ahaayeen kuwa akhriya todobadii kuwa macnaha dejiyo oo khatima todobadii bariba mar halka waxaan ka qaadanaynaa qorada todobadii bariba mar akhriyeysay dejinaysay Quraanka inay 4 juz iyo bar yoonkii ay akhriyeen sidaana ay ku khatimayeen 7 cisho waxa kale oo kamid ahaa qaar iyaguna aad u dadaala oo 3 maalmoodba mar Quraanka khatimo oo dejiya qoladaasna waxay ahaayeen kuwa akhriya yoonkii 10 juz sidaas ayay soddonka maxay ku khatimi jireen kuna dejin jireen dhankiisa Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa inoo sharaxay faa'iidada Quraanka waxaana bulshada ugu baaqay in bishan ay ka faa'iideystaan acmaasheeda iyadoo ay tahay bisha la soo dejiyay Quraanka Kariimka inoo bilaabatay aan ku dhex jirnaa bishii Ramadaan oo fadliga badnayd bishaas oo sideedaba ah hadiyad ama siismo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta ah ugu deeqay bishaas inay naftooda muraajaceeyaan inay dib u xoojiyaan xiriirka Ilaahay la leeyahay subhanahu wa ta'ala inay la yimaadaan waxyaalaha dimidaafka iyo naxariista Allah ay ku helayaan subhanahu wa ta'ala oo ay kamid tahay soonka salaada taraawiixda habeenka leeylatul qadarka oo lagu dadaalo sidoo kale bishaan waxyaalaha aad u fadliga badan in lagu dadaalo akhriskiisa iyo barashadiisa iyo fahankiisa waa Quraanka Kariimka ah sida in wada ogsoonahay waa bishii Quraanka Ilaahay uu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala sida Allah uu yiri shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda bishan Ramadaan waa bisha Quraanka Ilaahay uu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala waa bishii uu bilowday macnaha waxyigii ugu horeeyay oo Nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam xagga sumada looga soo dejiyay fadliga weyn oo Ilaahay uu ku leeyahay ummadan waxa ugu horeeya Ilaahay Nabiyullaahi Muhammad inuu u waxyooday sallallahu alayhi wasallam waa bishii waxyigu nabiga uu ku bilowday waliba gaar ahaan habeenka leeylatul qadarka ah oo bishan sida raajixa aakhirkeeda ku jira ayaa nabiga waxyigu ku bilowday sallallahu alayhi wasallam sida Ilaahay uu ku cadeeyay suuradii inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr bishan marka waa bishii Quraanka akhriskiisa in la badiyo barashadiisa in la badiyo ayaa la ina ka rabaa fadli aad iyo aad u fara badan ayaa laga helayaa waxa nabigeena ka sugnaatay kaleey salaatu sunna xadiiska Abdullah ibn Abbas bishan habeen kastoo kamid ah nabiga malku Jibriil inuu u iimaan jiray Quraankana inuu u meerin jiray oo Quraanka ay wada akhrin jireen halka waxaad ka arkaysaa sida nabigu u daneynayay kaleey salaatu wasalaam bishan Quraankii inuu dib u muraajaceeyo bisha barakeysan ee Ramadaan waa meerta sanadeed ee dadka islaamka ee dunida ku nool ay weynayaan bishan ayaa waxay ku suntan tahay bil dadka dunidu ay u soo jeestaan sidii ay u laba jibaari lahaayeen acmaasha khayrka hayna si laba jibaaraan sidii ay dadku u akhrin lahaayeen Quraanka Kariimka Cabdiraxmaan Xayir Garow
ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam